kulanti wanaagsan akhyaartayna daawanaysa dhammaantiinba meel walba caalamka aad ka joogtaan halkani waa telefishinka dalmar t v oo barnaamijyo fara badan idinkugu talagala maantana waxaanu si gaar ahaan waraysigan idinkugu diyaara isla agaasimaha dalmar t v ayaa maanta telefishinka martiinooga ah waxaanu wax ka weydiin doonaa arrimo fara badan oo isleenahay bulshada soomaaliyeed waxtar ayay leedahay ayaan agaasimaha noogu warrami doonaa shaafi kusoo dhawow isla telefishinkaaga dalmar t v anigu cabdinuur aada jira waa mahadsantay cabdinuur waa tahay waraysi yaroo googos ayaanu sameynaynaa dii allah woodila hadalka waanu googosanaynaa dadka kuma cusbin ana kuma cusbi telefishinka dalmarka kuma cusbo magaalada columbus waa sax telefishinkan waagii hore wuxuu ahaan jiray inuu si loo kala ahaan magaalada columbus uu ku koobnaaday haddana laakiin saacadaha iyagu baddaa shishabay noqday ilaa 24 saacadood ayaa si toosa loogu daawadaa baaliyo sida wararka sida ka warqabno dee maxaa horumarkan faraha badan iyo dadaalkan faraha badan leh bulshada soomaaliyeed ilaad wax u sheegtay miyaan ahayn waad mahadsantay cabdinuur waa sax weeye barnaamijka ama telefishinka dalmar t v saad og tahay ilaa 2011 ayuu magaalada kasoo shaqeynayay telefishon wuxuu ahaa ummadda u shaqeeya waqtiyada adag ay soo mareen dadka usoo gudbiyey mataqaanaa waxay u baahan yihiin maadaama uu telefishinka noocaas ahaa telefishinkii hawadan dib ugu celinay waqti yaruu hawada ka maqnaa hawadan dib usoo celinay channel 3210 ayuu ka baxayaa telefishinka waxaa kale uu ku jira roku oo worldwide ah oo adduunka dhan aad ka daawan karto ama turki joog ama soomaaliya joog ama india joog ama markasta joog turkiga ama rokuga waad ka daawan kartaa ama soo dejiso app ama telefishinka rokuga caadi uga daawo youtube-ka 24/7 baan nahay oo aan mataqaanaa dadka ugu soo gudbina su-aasha u weysay muhiimadda aan ugu talagalnay dalmar waxaa weeyaan in uu lafdhabar u noqdo ummadda soomaaliyeed dalka maraykanka oon usoo gudbino waxyaalahan isleenahay ummadda faa'iido ayay u tahay sababtoo ah media hadda wuxuu noqday tuulka keliya oo dadku ay ku adeegan karaan oo isticmaali karaan taas sida xun u isticmaashada waad yeeli kartaa sida fiican isticmaashada waad yeeli kartaa marka waxaa kaloo hadda aan soo wadnaa oo aad ay dadka ugu rayaaqi doonaan barnaamij appka ah oo la yidhahdo dalmar t v app oo sida cnn-ta ama in mataqaana newska caadi usoo dhaco soo degsanaysa telefoonka markii uu live yahayna live uu ku leeyahay notification uu ku bixinaya markii uu war uu jiro cusubna af soomaali kugu soo diraya marka waxay noqonaysaa qof kasta telefoonkiisa inuu 24/7 ogaan kara waxa ka jira magaalada iyo waxyaalaha aan mataqaanaa muhiimka ummadda loo gudbinayo waxaa jirta hay'ado fara badan oo nala soo xiriiray sida dhakhtariinta ama xagga dowladda sidiga ha noqoto inaan anaga u noqono inaan u gudbino ummadda waxyaalaha ay u baahan yihiin marka su-aashaadii waxaan ku gabagabaynayaa waxaa weeye dalmar t v waa television ummadda u shaqeeyo oo mataqaanaa aan doonayno in dadka soomaaliyeed oo dagaaladii ka soo cararay oo ilmahooda halkan la yimid in ay noqdaan meeshii ay warka isku gaarsiin lahayn waata aad baan kugu mahadinayaa arday badan aad dhigtay miyaa laga yaabaa shaafi in hadda maadaama hawada iyo dunida inteedii kale aan wada gaarnay aan hadda aan ku wada jirno ma laga yaabaa in maadaama dunida badda globalization iska noqoto hal meel wala iska arko adama telefishinkan waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo xagga hawada uu gaaray ayaan aaminsanahay shacabka soomaaliyeedna waxay u fadhiyeen bayaan marka hore walow maadaama si loo kala ahaanana laakiin hadda dunida reereydaanu marayna maasha allah weyn waxaa kaloo jeclaya inaan ku weydiiyo shaafi bal ka waran mustaqbalka sidee baad u aragtay telefishinka maxaa caqabado kaaga yimid dad bilowga hadda aad ku jirtay howl ahaan ama mustaqbalkiis waxaad tiigsanayso bal iyadoo naftirkeeda mustaqbalka cabdinuur aad baad umahadsan tahay mustaqbalka waxaan tiigsanaynaa inaan noqono sida cnn iyo aljazeera inaan adduunka aan afka soomaaliga ah dadka aan barno dowladdeena sharafta leh soomaaliya waxaan leenahay hadda barnaamij baa noo dhamaystir noo jooga in aan telefishinka dowladda u baahino dadka diaspora in aan dowladda waxgalkeeda annagu siyaasadda qofka markaa ku jiro ama xisbi ama wax kasta noqdo waxaan eegnaa waxaa la yidhaha nationalism dowladnimada dowladdeena hadda maanta jirta garab baan u nahay warkii annaga hadda waxaan diyaarinaynaa in barnaamij aan iyaga u baahino oo telefishinkeena uu ka baxo maadaama annaga hawada maraykanka aan ku jirno horta awalan waxaan rabaa inaan ku sheego cabdinuur waxaan nahay telefishinka keliya oo maraykan ka sharci garaysan oo soomaali ah oo 24/7 ah
dalmar t v oo hawada ku jira marka waxaa maalintii la daawata dad ka badan 3.9 3.4 3.8 ilaa iyo 3.9 million people ayaa maalintii la daawata marka mustaqbalka aan hiigsanayna waxaa ka mid ah in aan barnaamijyada ka dhacaya wadankii dadkii iyagoo telefoonadooda haysta inay usoo helaan oo ab bilaash ah oo ababka qaar oo aad kan aragto markaad soo dejisanayso lacag kusoo dejisanaysaa waad aragtay markaad fiiriso waxaa leeyahay $1 ama 99 cents laakiin kan dalmar free waa ha iOS kan oo ka dejisan kartaa mataqaanaa Android kan oo ka dejisan kartaa labadaba waa ka dejisan kartaa marka barnaamijkaas ayaa wuxuu noqon doonaa mid lafdhabar u noqda in ummadda meel kasta joogto Soomaalida waddankoogina ay la socdaan warbaahinta dowladdana ay ogaadaan dalka wixii ka jirana ay ogaadaan waxaan kaloo jeclay inaan ku weydiiyo waayada dambe waxaan si wanaagsan weliba nawaaxiga meesha haddaanu joogno magaalada Columbus baa ka jira doorashooyin ayaa ka jira magaalada Columbus Ohio dee maraan maalin dhowidaan barnaamij yar oo halkaa kasoo sameynana aan aragnay dadka Soomaaliyeed waayadii hore marka loo fiirshay haddaan farq weyn baa udhaxeeya waxaas ma la oran karaa abaabulkaas xaggiina dalmar t v ayuu ka yimid wacyigelin fara badan iyo dadka ayaad u qisada ma la oran karaa dad fara badan baa meesha yimaada xafiisyada meelaha codadka laga bixiyo o dhan cabdinuur waa sax weeye doorasho aad u waxaa jirta aad loolan adag u jirta doorashada dad Soomaaliyeed baa ka qayb galay oo qayb ka ah oo mataqaanaa doorashadaas ku jira ummadda yes anaga waan dardargelinay ummadda dadka waxaan u sheegnay mataqaanaa in ay ka qayb galaan doorashada oo ay mar kasta imaadaan doorashada oo ay muhiim tahay qofku inuu wax doorto qofka wax dooranaya markaad meesha tagto lista dadka doorashada ku jiro ayaa kusoo gudbaya mar hadday list ku imaadaan wada qofku wuxuu fiirinaya maxaa dan iigu jiraan issue yaal baa jira hadda oo no iyo yes in ilmaha iska soo rido issue 1 iyo issue 2 dadku waxay leeyihiin anagu de maadaama dad muslimiin aan ahayn dee qofku waad garanaysaa meesha uu raacayo anagu waxaan sameynay dalmar t v waan tagnay meesha xataa waxaan dadka ugu yeernay in ay ka qayb galaan doorashada oo ay doorashada mataqaanaa imaadaan qofka codkiisa inuu bixiyo waddanka credit ku yeelanaysaa markaad gurigaas ka joogtid adigoo wadani ah oo dalkii mataqaanaa sharci ku leh in aad dooran weyso dee waa waxaa weeyaan aad dhib badan qofku waxaa la rabaa inuu doorto waxyaalaha aad ay dowladda u fiirso waxaa weeyaan laba shay waa qofka inuu taxpayer yahay uu dowladdu tax usoo celiyo iyo qofka inuu voter yahay uu mataqaanaa wax ridi karo oo codkiisa uu ridi karo waddanka isbeddelka arkaysid maanta dowladda maanta ka jirta Mareykanka uu hogaamiyo madaxweyne Biden isbeddelkaasay ku timid dad baa soo doortay cod weyn hal cod macno badan buu leeyahay inaad adiga maanta istiraado anigu hal qof baan ahay Soomaalida ma badno ma aha qof kasta oo Soomaali ah hadda waxaan rabnaa inaan ummaddeena u gudbino in xaafad kasta inta qof oo doorashada qof ridi karta oo age oo 18 iyo wixii kale ama qofka registeraysan in dadku ay doortaan dadka hore waxaan u leeyahay registeraya oo is-registeraya oo sharci oo ogaa mataqaanaa addresskaaga maantana waxaan leenahay doorashada u soo baxa imaada oo qofku inuu votekiisa bixiyo muhiim waaye dalmar t v waxay ka mid tahay mataqaanaa barnaamijyada ugu horreeyay oo ay sameynayso oo ahaa in dadku ay doorashadu imaadaan oy wax doortaan qofku markuu wax doorto ayuu dareemi karaa inteed ka joogtaa markii hadda la yidhaahday ilmaha waa mataqaanaa waxaa laga dhigayaa ilmo baa loo bedelaya ilmaha xerimka taranka laga bedelayaa dadka Soomaalida way carareen Nairobi way isku ureen oo ay tageen laakiin taas xal ma aha xalku waxaa weeye in aad vote garayso oo aad diido waxna ogolaatid haddii marka aad noqoto inaad cararto dee dalkeena markaan kasoo cararnay oo dadkii waxgalka ahaa oo ama engineer ahaa ama IT ahaa markay dadka kasoo baxeen oo ay soo carareen oo wadamo qaxooti ku noqdeen dalkii 30 sano dib dhac u galay soo haddii haddana dadkii halkan wax ku bartay oo dhalinyarada ahaa oo la rabay inay mustaqbalka dalkana wax ka noqdaan dalkan dib u celiyaan ay marna Nairobi usii ordaan marna dib loo soo celiyo wax faa'iido ma keenayso waa tahay daawadayaasha qiimaha qaayro weli waxaanu bartan kaga jirnaa barnaamijyadii sida gaarkaan idinkugu talagalnay dalmar t v ayaanu weli bartan kaga jirnaa waxaana maanta martiin loogaa telefishinka dalmar agaasimaha shaafi ayaa nala joogo raysi ayaanu weli bartan kaga jirna shaafi waxaan jeclay marka inaan ku weydiiyo maadaamaan gudaha kaga jirnaa xagga iyo doorashooyinka
magaalada Columbus Ohio aan isugu nimaadno markaan magaalada Columbus Ohio laguma baran arrimaha noocan oo kale doorashooyinka in dad soo tartamaan iyo in dhawaalaba soddonkaas sanadood ee bulshada Soomaaliyeed halka ka ahayd muddo hadda laga joogo 2 sano iyo cajaayib wax noocaas oo kale neefti waan u malaynayaa ayaa sida waxaa tartan soo gala Ismaaciil iyo gabadha Muna la yidhahdaan malayna haddaan magacaan qaldanayn dee haddana waxaa xiga ninka la yidhahda Jeeto haddana wararka suuqa waxaa tibaaxaya la sheegayaa in adiga iyo nin kaloo saaxiibina Xuseen Jaabir aad waddada kusoo jirtaan abuurtayada ma wax jiraan mise Columbus roob fara badan baa ka daayad moodaa inay dadkooda xagga ma inaad doorashooyin xoog la aad saarteen oo ismuujis waayo loogu baran magaalada Columbus dadku hadda dunida dalka gudihiisa joogay ku qurbaa waxay barteen magaalada Minneapolis baa wax laga soo doortaa wiil orday waxbarashada inaan ordaya degmada laakiin beriyahan Columbus baa dab yaraan shidayno tartan xoog leeyahay ku jirta taayada walka hor حد إنه العدد ما صنتهاي ويجي تها برنامج كزوجها لسات وقتها لابد كرسي أبوه الرهي أو ديستريكا أي كوسو كان لابد خفوا الصومالي ده ديستريك الصومالي هذا أبوه بلانتاي معنا لابد قيد بمركي ليه هذا قيد بيو نوسوي مركا هذا أبوه ما بدنا نيك هذا أرده هي أو سيري كانسل كأرده هي ديستريك 5 بوك أرده هي مركا شروع لو حاول إنه ديستريك ديستنا كوريو سيري وايد نو كوريو سيري وايد حاول مجال أردن لحدا نكون أفضل بلو بحي dad badan oo Soomaali baa soo baxay oo sanadkan aad weligii la arkin falaad baa soo baxay marka aad loo yahay hadda meesha maanta markaan tagnay waxaan awoodi weynaa ka soo noqdo oo soo laabto bas aan soo laabto dadka joogana Soomaali u badnahay waa sax way jirtaa barnaamijkaas in Soomaalidu ay arkeen inaad dalkan ku noolaatid oo diintaada iyo dadnimadaada iyo mataqaanaa dhaqankaaga ku ilaashatid وين هذا الصعدة حدارجة سياسة الدرك الملكة الدرك الملكة كنا دوتها موجي وكاونتر أوف إيماجرانت عليها ووضع الدرك أي مثلا هذا الإيماجرانت أي مثلا أي وبديه ويجوجا كأب كوري ماله بدهينه على تاريخ اسم كذي ونعرف دونالد ترامب وهذا أبوه اسم مثلا أي وضع كيف كان هذا جو فاميلي ايريش وي مركا أوباما ولا كينيا سنة أوباما أو كينيا مثلا كينيا أو جيسكيب سين أوباما للمسلم أو جيس أو هي مدحين كانوا مركا تاس وحي كينيسا إن dadkii Soomaalida ah oo 20 sano ama 30 sano wadanka imaaday in ay iyaguna dhahaan war anaguna qaybteena ka galina wad aragtay hadda Soomaalida Minnesota waxay doorteen gabar Soomaaliyeed oo ay geeyeen Congress-ka saadadka anagana waxaan ugu dhashay barnaamij noocaas oo kale ah waa sax saw shaqo website laba kursi ayay hadda Soomaalida doorasho soo socoto iyo ka istaagi doonaan oo ay mataqaanaa laba district oo hadda aan doonayn inaan magacyada sheego ayay ka istaagi doonaan rag fara badan oo dhalinyaro ah diyaar ay u yihiin mataqaanaa barnaamijkaas ay kaga dhigayaan oo ay ka qayb galaan marka waxaan leeyahay dadka Soomaalida dad badan baa waxay u marayaan in waxa uu vote gareynay ay tahay bal anigu waxba la ima qabanaya vote-kayga waxba doorasho waxba ima aha doorashadu wadankan waxaa lagu sifeeyaa oo budgetka lagu bixiyaa inta ay la eg tahay dadka degan hadda markaad tagto New Albany oo dhacdo iyo markaad tagto mataqaanaa Wayjuud iyo areada mataqaanaa hadda dadkeena degan yihiin ma isku dhaqaala maxaa keenaya farqi weyn baa u dhexeeya marka farqa u dhexeeya waxa weeyaan dadka meeshaas joogo ayaa waxay yihiin dad taxpayer ah oo la socdo waxooda la socdo oo dadka ay soo doortaan la xisaabtama hadda adigu iska orid Mareykanka ama waa iska shaqaysanaya ma vote gareynayo de berito waxay kugu imaanaysaa in xaafadaha ta wadada loo hagaajiyo berito gaarigaaga in meel ay kaga imaato ama gaarigaaga wax ku dhacaya oo wadada laga hagaajinayo ama booliiskii baa difaac ugu sameynaya oo lacag aan qaadanayn ama si uu bay ku soo galaysaa marka dad kugu soo socda inaad u fadhida lagama baahno waxaa loo baahan yahay qofku inuu vote gareeyo markuu qofku vote gareeyo isagay u taalaa waxa wanaagsan uu arkayo meesha uu kaga baxay marka nacam dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo hadda khaasatan website-ka ayaa diyaar u ah in ay doorashada dambe iyagana ka soo muuqdaan shaafi horta tirakoоб sugan magacaya bulshada ku dhaqan magaalada Columbus ahaan tira badan markaas la dadku qaarkood mid baa qoranay state kun mid baa boqol qoranaya mid wuxuu ku leeyahay dadku iska reer guriga sidii baan wali ku jirnaa qaarkood ayagoo halka ka duwan garaysan baa haddana state kale siga guuran marka waa tiradaas tira sugan oo hadda carabaabi karo bal Columbus maxaad ku qiyaasi kartaa aqlaanta anoo hadda ku lahayn tira go'aan sheeg alxamdulillah su'aal wanaagsan هذا مثلا هاي وحاجة واحدة BMV record
oo dadka markay BNB-ga imaadaan ay qofka uu sharciga qaadanayo aad iyo markii lagu dambeysay 130,000 ayay gaareen dadka Soomaalida Columbus waa jirta marka markii oo Ohio way Columbus ma markii oo hadda qiyaas ahaan la yiraahdo dadku waxay ku qiyaasaan 190 kun oo Soomaaliya anigu waxaan aaminsanahay in Soomaalida Minneapolis degan anagu aan ka badanahay sababtuna waa sida Soomaalida Minneapolis degan gobol waxay ku nool yihiin 400,000 أنا 4 مليون mataqaanaa dad meesha ay hadda Minneapolis waa dadka sidii ku xanooliyay marka maadaama dadka hal meel ay ku leeyihiin dadku waxay u haystaan dad badan oo Soomaali ay degan yihiin Cabdul marka hadda tagtid Westfield oo aragtid ilaa 300 400 oo apartment oo Soomaali bas degan tahay oo aad tagtid New Albany oo aad tagtid Kahana oo dadka guryaha ka iibsanayaan hadda oo aad aragtid maalmaha ciida masaajidada wada ogtahay ciida 3 jeer baa la tukadaa maalmahaas waa xoog loo arkaa marka maalma taas waxaa tusinaysa anigu waxaan qabaa Soomaalida inaan nahay dadka Soomaalida gobolka ugu badan inuu ahaayaan anigu qabaa oo tirada dad ii sheegtay oo shaki boqolkiiba ka soo horjeeday 80 bad ku sii dartay 80 ma ku sii daray waaw marka dadka inta la eg haddii ay go'aan qaataan oo yiraahdaan anagu waxaan diyaar u nahay vote-keena inuu block noqdo ama xisbiga ay ku biiraan isbedel u sameyn karaan waxaad ogtahay sidigan hadda aan joogno 20 sano ka hor ama 20 sano ka hor waxaa gacanta ku hayay xisbiga jamhuuriga markay Soomaalidu imaaday iyagu markay imaadeen sida badan waxay yiraahdaan kuwa noo dhow dad badan baa waxay u maleeyaan dhaqaalaha ay qaadanayaan ama guri ha laga bixiyo ama hala siiyo mutaqaan dhaqaale kale in ay xisbi ku caawiyo may xisbi kuma caawiyo waa right aad leedahay qofka intuu dhaqaalihiisa intaas leeyahay waad u qaadataa qofka in Medicaid la siiyo waad aragtay Medicaid qofka ku apply gareeyo waxa leeyahay income limit baa jirta income ka limit hadaad ka korayso waxa lagu siin maayo anu hadda Medicaid ma qaadan karin income limitki waa soo dhaafay haddii marka qofka uu income limitkiisa uu gaaro xaq buu leeyahay xisbina kuma diidi karo marka dadka Soomaalida waxaa rabaa inay ogaadaan in isbedel kasta oo dhacay in ay magaalada ay bedeli karaan haddaan maanta anagu hadda aan awood intaas samaysan Soomaali aan guurno u soo guurno hal township ama west u guurno townshipka waxaa nala siinayaa booliiskeeda waxaa nala siinayaa nidaamkeeda waxaa nala siinayaa dhaqaalaheeda wax anaga khaas noo noqonaya marka city of Columbus waxaan rabnaa in aan geyno dad anaka inoo dana xisbi anaka inoo dana oo diinteena ilaalin kara dadnimadana ilaalin kara waxaa jira waxyaalo fara badan oo Soomaalida hadda aysan ogeyn oo ku dhaca oo dagaalo mataqaanaa waraysiyo badan hore nagu sheego oo ah in dadka Soomaalida mataqaanaa oo dhaqaalaha sameeya ganacsigooda dagaal ugu socdo oo ay mataqaanaa dad dawladda ku jiro ama doonaynin ba dhaqaalaha Soomaalida inuu kobco markasta hortaagan waxaa jirta kuwa iyagana socdo oo magaca Soomaalida wax ku raadsanay oo leh immigrant community ka socnaa magacaas aan lahaa anaga cidna ma tashay maray dadka Soomaalida dad baa waxay dhahaan Soomaalidu way kala qoqobihiin qabiil bay ku abeen Soomaalidu dad aad u midaysan way anigu ganacsiga hadda aan madax u Somali Chamber of Commerce waxa soo gaar Soomaalidu in ay ganacsiga ku midaysan yihiin oo waxa ay sameynayaan wax nidaamsan u yahay magaaladeena waxay dadku bumbuuriyaan waxa la arkaa laba qof oo after wax yar ama mid dhaqaala doosidii ka raasay mid kale raasanay oo iska hor imaaday inay dadku dhahaan Soomaalidu ma midaysan Soomaalidu way midaysan yihiin dad Soomaaliya waxaan ogaanay maanta dadka soo baxay oo doorashada imaanay qabiil uma soo bixin waa nin Soomaali baa taagnaa dad u soo baxay ma ahayn qabiil qaadanay marka macnaheedu waxa weeye Cabdinuur dadka badan oo hay'ad degan oo mataqaanaa doonaya in ay yani doorashada ka qayb galaan dad Soomaalinimo iyo in ay wax mustaqbal sameeyaan marka dadku waxaan ku boorinaynaa inay awalan registration ka sameeyaan kadibna ay doortaan waxa iyaga danta ah maasha waxa weyn arrin aad iyo aad u wanaagsan weyn aad ka dhawaajisay daawadayaasha qiimaha ay qaayaan oo agaasimaha waxa uu inoo sheegay aydan xusuusiyay in telefishinka Dalmar TV aad ka daawan kartaan aalad walba markaasi kuwa lagu magacaabo cidda haysata adduunkana ku nool meel walba ayaad ka daawan kartaa wuxuu kaloo agaasimaha inoo tilmaamay in
dalmar t v apple uu soo saari doono dabeetana haddaad telephone sidato haddaad android wadato haddaad gurigaaga joogto haddaad computer haysato intaba aad kasoo garaysan karayso hadday app ka raanado telefishinka dalmar t v waxaana diyaar idinku yahay waxyaabo walba idinku taladiina markaad soo jeedisaan aad baan idinku dhiirigelina wixii markaa tafaasiila inoo haysaana dee meelahani ay dadku laagta iyo maxaan ku irahdaa isa saaraan iyo aaraada lagu gudbiyo inta baad kusoo kori karaysaan hadday youtube ka noqoto hadday facebook u noqoto telefishinka dalmar t v dhammaantiinba barnaamijkan barnaamij midintaanu ku kulmi doon waxaa idin rajeynayaa isku soo noqo dambo xiisa